barnaamijka aan bixinayo waraysigan waa muhiim inaan sheego qabiilada iyo saraakiisha iyo dadka aadaan u sheegi doonaa mana ka xishoon doona sababtuna aan u samaynayn wax kale ma ahan dadkana daawanaya waa inay ogaadaan Soomaalidu waxay isku fahantaa identity ama qabiilka isku fahantaa qof miyaa la hadashay igu tiri hadda inta meesha soo gashay haa baan dhahay yaa waa igu tiri Cabdiqaadir Maxamed Cabdo wasaaradda warfaafinta u shaqeeya ayaa soo wacay waan ku yiri shir igu marti qaad waxaan ku yiri kama qayb gali karo waan fasafraya ma ahayn igu tiri inaan la hadashid Cabdifataax Bashiir taliyaha booliiska garoonka Cade wuxuu iga dhacay $1,200 ilaa had iima soo celin shirki jiraa'id intaan qabanin ka hor waxa ay soo wacay nin liiraa Maxamed Kaafi Abuukar agaasimaha raadiyo Muqdisho aan ku ogaa laakiin markii dambe aan ogaaday inuu taliska nabad sugidda uu ku biiray wuxuu ugu yiri waxa la joogo wasiir ku-xigeenka ninka liiraa Cadaala iyo agaasimaha guud ninka liiraa Cabdullaahi Xiriir Ducaale iyaguna aan sheekooyin badan inaan barnaamijkan dhexdiisa ku sheegi doono hadii ilaahay shan urur ayaa qabatay shirka jiraa'id laakiin Cadaala wuxuu gudoomiyaha SJS u sheegay isla markaas uu sheegay in uu la dagaalami doono SJS iyo Cabdulla Muumin mar allaala markaan qadadii ku jiro 22 daqiiqo ayuu mar kale ugu soo celiyay Abshir Buqaari telefoonka wuxuu ugu yiri arrintii ayaa wali idinka sugaynaa waxaa iri shirkii muuqaaladii aan ku soo diray weerarka xafiiska lagu soo qaaday maxaa kaaga baxay wuxuu ugu yiri arrintaas niyo waan daba galay dhacday waaye inaan dib ugu laabano ma ahan waa inaan hore uga soconnaa waxaan ku yiri haddii dil uu dhici lahaa ereygaasaan ku yiri haddii xataa dil uu dhici lahaa oo meeshaas ama aniga lagu dil ama qofka lagu dil lahaa waxaa dhihi lahayd laga socdo waxaa hogaaminayay ninka ahaa taliyaha nabad sugidda degmada Howlwadaag oo la yiraahdo Shakiib oo markii hore ururka Al-Shabaab ka yimid isagoo dil geysanaya suuqa Bakaaraha ciidan ka tirsan koox nabad sugidda soo qabteen la geeyay nabad sugidda asoo bastooladiisa iyo dharkii dhiigga lahaa wata ayay ka siibeen dharkii nabad sugidda u soo galiyeen baabuurna waa soo saareen ciidan waa u soo direen magaaladana waa u soo direen ciidamadaas waxaa watay nin la yiraahdo Shakiib oo shabaab hore u ahaan jiray isagoo dhaawac ah oo dagaalamaya ayaa laga soo qabtay suuqa Bakaaraha waxaana lagu xiray xabsiga dhexe kadibna waxaa loo sii gudbiyay Sarandi oo lagu xiro dadka dambiilayaasha ee iska soo dhiiba shabaab ama ayagoo dagaalamaya la qabto halkaas ayaa laga soo saaray kadibna waxaa loo qaatay inuu ka mid noqdo ciidamada nabad sugidda waayahay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelanay xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdalla Axmed Muumin Cabdalla ku soo dhawow Risaale TV waa mahadsan tahay Cabdiqaadir adiga tiimka Risaale oo salaamaya waayahay marka hore waxaad markaasi faahfaahin naga siisaa heerkaaga waxbarasho ama taariikhda kooban barbaarid waxbarasho iyo shaqo intaba waa mahadsan tahay mar kale Cabdiqaadir aniga Cabdalla Axmed Muumin waxaan ku dhashay Kismaayo magaalada Kismaayo waxaan laakiin ku barbaaray magaalada Muqdisho burburkii markii dawladdu ay dhacday qorshe wuxuu aan iskool la geeyo laakiin nasiib uma helin qaxa la galay qaxay ugu horeysay waxaan ku tagnay magaalada la yiraahdo Qoryooli laba isbuuc camal meelahaasaan deganayn marka waxaan dib ugu soo laabanay Muqdisho waxaan degnay agagaarka Fagax ayaan degnay mar kale waxaa haddana bilowday dagaalka 4 biloodkii marka familku way qaxeen waxaan u qaxnay xaafadaha ka sarreeya Waxar Cadde markaa dhul iska bacaad ahaa oo deegaan fiican aan lahayn waa 91dii intaan hadda kuu sheegay ilaa 92dii waxaan dib ugu soo laabanay magaalada Muqdisho markaa oo dagaalka 4 biloodka weli uu gabagabo markaas yahay waxaan ku biirnay dadkii barakacayaasha ah magaalada Muqdisho ku soo laabtay magaalada joogay nolosheedii ugu horeysay meeshaas ay ka hanaqaaday ku bilowday iskoolkii ugu horeeyay oon tagay oon dhigtana iskool wuxuu ahaa ay furtay hay'ad la yiraahdo Concern oo NGO-yada markaas shaqeynaya kamid ah welina shaqeeya waxaan fursad u helay markaa in
tacliin fiican macallimiinta markaa dowladda ay ka dhacday markaa siyaad bare intoodii soo hartay oo weli aan qaxin in la shaqaaleysiiyo marka macallimiintii ayaan helnay af Soomaaliga si fiican runtii noo baray iyo luqadda Ingiriiska inkastoo ay aad u xoog badnayn laakiin manhajka waxna lagu baray ayay qayb ka ahayd aadan rabaa inaan ugu mahadceliyo macallimiintii xilligaas indhaha tacliinta aniga iyo dad kaloo badanba noo furtay nasiib darro iskoolkeeni maamulihii gabar Ingiriis ah oo Fowler la dhahay ahayd waa la dilay mooryaantii markaas Muqdisho ka jirtay ee dishay sidaas iskoolkii nooga xirmay laakiin dadaalka waxbarashada aabahay iyo hooyaday waxay ahayd dad waxbarashada jecel way sii wadeen way ugu dadaaleen ilaa aan ka soo gaaray heer dugsiga sare 2003 markay ahayd ayaan waxaan bilaabay qoraalada warbaahinta waxaan la bilaabay wargeyskii la dhahay qaran oo markaas wargeysyada farkutiriska magaalada Muqdisho ka jiray laakiin si baaba'ay si dabar go'ay dowladda Cabdiqaasim ayaa markaas 2000 3 sano camal ku dhawaad ayay markaas joogtay marka dagaalada Muqdisho ka jiray iyo dhibkii dhacay darteed waxay igu qasabtay inaan magaalada isaga guuro markaas waxaan nolol cusub ka bilaabay deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso aniga iyo familkayga halkaas caruurteedii badankood igu dhasheen waxaa marka fursad u helay inaan la shaqo bilaabo radio Banaadir oo warbaahinta markaas ugu cuslayd Muqdisho ka mid ahayd markii xagga u wareegay marka waxaan fursad u helay inaan noqdo correspondent ama waxa la yiraahdo wakiil wareed correspondent-ga xogaa reporterka wakiil weeye dhowr gobol ayaan isku cover gareynay caqabadii ugu horreysay markaas oo saxafiyaha ay soo fosaartay waxay ahayd anigoo Muqdisho ka yimid deegaanada aan ka soo warramay ahayd Puntland iyo maxkamadihii islaamiga oo Muqdisho ka bilowday oo intay soo fideen ilaa gaalkacyo ku soo dhawaaday marka aad ayay u adkayd in war ku saabsan arrimaha maxkamadaha iyo dagaalada socda iyo diyaar garowga deegaanadaas ka jiray aan soo diro nasiib wanaag waan ku dhex badbaadnay waan ku dhex shaqeynay warbaahinta Puntland ka jirtay oo localka qaybaheeda kala duwan ayaa kadibna ka soo shaqeeyay hadii magacyo aan sheego Horseed Media SBC oo markii dambana telefishinka lagu soo diray waxaasoo dhan ayaan soo maray handadaad iyo caqabado tiro badan way jirtaa laakiin waxaan rabaa inaan 2 iyo 3 markay fursadaha yimaadaan inaan ku dhex daro oo sheego taariikhdeeda waa taas ka sokow dhinacaas markii laga tago waxaan haddana warbaahinta Muqdisho ka jirtay qayb weyn ku lahaa gaar ahaan radio Risaalo oo maalintii la bilaabay warkii ugu horreeyay idaacadda aan aniga bilaabay waliba markii musiga la bilaabay sababtoo idaacadda intii ka horreysay waxaa ka bixi jiray barnaamijyo diini ah music ma bixi jirin markii idaacaddu bilowday inay music barnaamijyadeeda ku dayso dadkii ugu horreeyay qofkii ugu horreeyay warka akhriya ayaan ahaa tafaftiriga guud idaacaddana waan soo noqday kasoo ka warbaahinta gudaha waxaan fursad u helay inaan warbaahinta dibadda iyadana aan la shaqeeyo sanadkii 2011 waxaan fursad saxafi madax bannaan oo darajadiisu ay gaarsiisantay reporter ka helay wargeyska The Guardian warkii ugu horreysay waxaan qoray October 2011 ayaan qoray sanadkii ku xigay waxaan fursad u helay inaan wakaaladda wararka Reuters oo adduunka oo dhan ka shaqeysa aan iyadana Soomaaliya aan uga warramo 2014 waxaan iyadana fursad u helay inaan u wareego wargeys Mareykan ah oo caan ah oo la yiraahdo Wall Street Journal waxaana ka gaaray fursad ah qofka saxafiga oo Soomaali ah oo awood u yeesha in wargeyska bogga hore war uu daabacay uu ku soo baxo waxayna ahayd dhimashadii ama duqeyn Mareykan ay ka sameeyeen Soomaaliya oo markii dambe xaqiiqo ay noqotay in lagu dilay hogaamiyey Al-Shabaab Axmed Godane The Wall Street Journal ilaa 2016 waan sii waday qoraalada aan qoraay laakiin waxaan dib haddana marka lagu soo laabtay The Guardian oo la yaqaan adduunyada sumcadda uu ku leeyahay xagga xuquuqda aadanaha marka laga hadlayo xorriyadda qowlka laga hadlayo welina si madax bannaan ayaan wax ula qoraa taa waxaa ii dheer inaan wakaalado kale aan si
aan joogto ahayn aan ula sameeyo waxaana ugu dambeeyey wakaaladda arrimaha bini'aadanimada ka hadasha la yidhahdo new humanitarian telefishinka aljazeera qaybtiisa englishka BBC-da qaybta dibadda la hadasha la yidhahdo world service raadiyaha iyo telefishinka iyo warbaahino kala duwan sida kuwa Jarmalka iyo South Africa iyo Faransiiska ah waxaas oo dhanna waxaa kula shaqeynaa waxay darajada la yiraahdo contributor oo micnaheedu tahay in aan ka qayb qaato warbixinada iyo wararka si madax bannaan uga qayb qaato soo saaristooda anigoo awoodna u leh inaan 2-3 kala duwan la shaqeeyo markiiba awood u leh oo ayna jirin wax ay xadidayo oo gooni ay xadidayo mid kastana aan kula shaqeeyo maarta shuruudo gooni ee contract gooni ah way aad u mahadsantahay 11 bishii October 2022 ayaa lagu xiray adigoo safar u ahaa dibadda maxaa keenay in lagu xiro yaas ka dambeeyay xarigaaga waa mahadsan Cabdiqaadir 11 October 2022 ayaa la afduubay anigoo ku sugan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho dhacdadaas afduubka waxaa ka horeysay weerar lagu soo qaaday xafiiska ururka saxafiyiinta SJS ee magaalada Muqdisho maalintii 10 ahayd October subaxdii abaare maqribkii abaare 12 iyo markii 29 daqiiqo camal salaad maqrib kadib weerarkaas xafiiska lagu soo qaaday afduubka garoonka diyaaradaha dhexdiisa lagu geystay way isku xirnaayeen way xiriirsanaayeen maalintii October 10 ay ahayd waxaan qabanay shir jiraa'id 10 bisha October 2022 subaxdii waxaan qabanay shir jiraa'id oo wada jir ah oo ururada saxaafadda oo dhan ay soo saareen oo ku midaysan dalada la yiraahdo SMSJ warqadaan uu ku qoray hope in kamarada laga arkay ururada qabtay waxa waaye Somali Journalist Syndicate oo aniga xogeeyo guud aan ka ahay FESOJ waxa ku xiga Soma dalada idaacadaha iyo telefishinada madax banaan waxa ku xiga Simha waxay ka mid yihiin dhamaantood iyaga iyo kuwa kale waxay ka mid yihiin dalada badqabka saxafiyiinta ee la yiraahdo SMSJ oo kor ka aragtaan war saxaafadeedkan sida ku qoran wuxuu soo baxay 10 October 2022 wuxuu jawaab u ahaa markii war saxaafadeedkan war saxaafadeedka soo baxay wasaaradda warfaafinta gaar ahaan wasiir ku-xigeenka warfaafinta ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cadaala oo uu soo saaray 8 bishii October waa 2 maalin ka hor war saxaafadeedkan oo warbaahinta ku leeyahay waxay galayaan dambi haddii ay ka hadlaan dhacdooyinka ku saabsan al-shabaab oo uu leeyahay waxaan la tiigsanaynaa tallaabo maaragtay uu ku sheegay sharci laakiin sharci darro ah sababtoo ah qof inuu intuu iska soo istaago uu yiraahdo dambi waaye waxaas waa xadgudubka ugu weyn ee dawlad iyo sharci laga galo inuu qof afkiisa uu ku dambiyeeyo dadka waxay sameynayaan war saxaafadeedkaas uu soo saaray Cabdiraxmaan Cadaala oo wasiirku uusan la qabin sida mardan uu noo sheegi doono waxa ku jirtay arrimo la yaab leh oo xadgudub ku ah dastuurka dalka ku ah saddex waxyaabood ka tilmaanay qodobka ugu horeeya war saxaafadeedka ninka akhriyay ayaa fahmi kara wuxuu ka hadlayaa erayada maldahan ee isku dhex jira ee ku jiray war saxaafadeedka uu soo saaray wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cadaala oo uu leeyahay waxaan xadidaynaa helista xogta oo uu leeyahay waxaan joojinaynaa arrimaha ku saabsan wararka ay warbaahintu sheegaan arinta labaadna waxay ahayd in uu war saxaafadeedka afkiisa uu ka akhriyay uu ku soo rogayay waxa la yiraahdo xayiraad uu ku soo rogayay warbaahinta caadiga ah iyo baraha bulshada oo warbaahinta laftirkooda qayb ka ah wuxuu magac dhabay barta la yiraahdo Telegramka oo iyaduna aan ka hadli doono oo si fiican u sharxi doono haddii aan fursad u helno arinta saddexaadna waxay ahayd waxaan muujinay walaacan ka qabno inay dhici karto in la aamusiyo codadka xaqa ah sharciga ah oo ay ku jiraan kuwa dhaleeceynaya dawladda iyo ciidamadeeda oo loo isticmaali karo in lagu aamusiyo codadka aan ka hadlayo codadka saxafiyiinta dadka xuquuqda aadanaha u dooda dadka madaxa bannaan ee cilmi baarista sameeya oo iyagu laftirkooda ka hadla arrimaha amniga dadka wax falanqeeya oo ogtahay inay markii wax dhacaan falanqeyn ka sameeyaan iyo
dadka la midka ah xitaa waxaa soo geli kara baarlamaanka waxaa soo geli kara dadka shacabka oo caadiga ah sababtoo dhacdo markay dhacdo dadka oo dhan ka hadla haddii marka sidaas lagu socdo oo war-saxaafadeedkaas saas lagu dhaqangelin lahaana waxaa dhici lahayd in dad badan loo sameyn lahaa dembi sida haddaba dhacday aana ka hadli doono haddii ilaah idhaahdo waxaan sidoo kale war-saxaafadeedka uga hadalnay in aan ka qabnay walaac arrinta ku saabsan walaaca amniga in loo isticmaali karo in al-shabaabna ay ugu hanjabto wariyaasha ama ku dhibaatayso dhankeeda iyadoo dhehaysa waxay la safan yihiin dhinaca dowladda dhinaca nabad sugidda iyo ciidamada dowladduna ay dhihi karaan waxaan dhibaataynaynaa wariyaasha iyo warbaahinta waan xiraynaa ama waan xirnay sababtuna waxay tahay waxay faafiyeen ama sheegeen warar ku saabsan ama lidi ku ah amniga ku ah marka saxafiyiinta iyo warbaahinta waxay dhex gelaysaa xaalad qaaba qowsayn oo labada dhinacba cadow u yihiin ilaa haddaba siday ugu yihiin ayaan ku sheegnay war-saxaafadeedkeenna si cad wuxuu u sheegayay qodobada 18 iyo 32 oo dastuurka federaalka kumeel gaarka ah waxa ay sheegayaan oo ay leeyihiin damaanad qaadka xorriyadda hadalka iyo wax cabirka iyo damaanad qaadka fikirka iyo xorriyadda saxaafadda inay ku qoran yihiin oo ku xafidan yihiin dastuurka dalka aanan lagu xadgudbi karin in dastuur ku qoran tahay waxaan kaloo soo qaadanay qodobka 38 ee dastuurka oo mamnuucaya in xuquuqda muwaadiniinta la xadido iyadoo marmarsiiyo looga dhiganayo arrimo aan caqligal ahayn macquul ahayn reasonable ahayn sharci aan ku fadhin oo aan loo cudurdaari karin habka lagu gooyey ama lagu go-aan gaarana aanay cadaalad ahayn qodobka ka hadlaya ogow hadalka kayga ma ah waxaan kuu sheegay waa qodobka 32 dastuurka federaalka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya waaye ninka raba inuu fahmo ha soo baxsado dastuurka qodobka 32 ha kala furo waxa ku qoran fiiriyo waxaan kaloo soo qaadanay war-saxaafadeedka ku sheegnay shuruucda caalamiga ah ee Soomaaliya ay qaybta ka tahay waxaan soo qaadanay 2 meelood meel waxay tahay in ay jiri karto in xadidaad lagu rogi karo xorriyadda hadalka ama xorriyadda fikirka laakiin ay u baahan tahay shuruudo dhowr ah oo isku xigxiga oo ay ka mid tahay inay ujeedadu ahayn in lagu qariyo fashalka dowladda ka haysta dhanka amniga oo ay ka mid tahay inaysan ujeedadu ahayn in lagu daboolo tacaddi ay dowladdu geysanayso iyo xadgudub ay dowladda iyo ciidamadeedu geysanayaan haddii aan sidaas loola jeedin oo ay ujeedadu ahayn in la xayiraayo xorriyadda hadalka iyadoo ujeedadu tahay taagdarrida iyo tacadiga ay dowladdu geysanayso iyo tabardarideeda xagga amniga maaragtay ka qabto haddii aysan ujeedadu ahayn in markaas la xadidi kara ayaan sheegnay waxaan soo qaadanay qaanuunka la yidhaahdo Johannesburg Principle oo 1995 la meel mariyay bishii Oktoobar 1 oo ay sameeyeen khubaro caalami ah oo dhinaca xuquuqda aadanaha iyo shuruucda caalamiga oo iyaguna sheegaya in loo baahan yahay xorriyadda hadalka iyo marmarsiyada sugidda amniga inaysan isdhexgelin cidii rabta inay fahanto waxay fiirin kartaa oo raadin kartaa waxa la yiraahdo Johannesburg Principles sharciga kale oo soo qaadanay wuxuu yahay xeerka caalamiga ah ee la yiraahdo Geneva ee xorriyadda hadalka maarta xuquuqda aadanaha oo asaguna damaanad qaadaya xorriyadda hadalka shaqada warbaahinta iyo saxafiyiinta waxaas oo dhan waxaan uga dan lahayn marka in aan tusno ninka wasiir ku-xigeenka warfaafinta waxa uu iskala soo booday aqoonna uusan u lahayn meesha ay ku dhammaanayso in sharci darro ay tahay aan fahamsiino u caqli celinno cashar iyo darsi aan barno ugu dambeyn war-saxaafadeedkan wuxuu ku gabagaboomayaa baaq waxaan leenahay wasaaradda warfaafinta waxaa ugu baaqeen inay dib u fiiriso warka ay soo saartay iyo inay xaqiijiso xuquuqda saxafiyiinta iyo xorriyadda warbaahinta inaan la xadidin waxaan kaloo leenahay waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka in ay xorriyadda hadalka iyo xorriyadda warbaahinta iyo xuquuqda saxafiyiinta la tixgeliyo la dhowro lana horumariyo waxaan leenahay dowladdu waa inaysan dembi ka dhigin in saxaafaddu ay warbixin soo gudbiso shaqada saxaafadduna dembi ma ahan ma noqoto waxaan ku dhiirigelinaynaa dowladdu inay dib u fiiriso
oo dib u eegis ku samayso xeerka warbaahinta ee 2020 arrimahaas ayaan uga hadalnay oon ku sheegnay ururada saxiixay mar kale waxay ku qoran yihiin dhamaadka war-saxaafadeedka waxaa la yaab leh shirki jaraa'id intaanan qabanin ka hor waxa ay soo wacay nin la yidhahdo maxamed kaafi abuukar agaasimaha raadiyo muqdisho aan ku ogaa laakiin markii dambe aan ogaaday inuu taliska nabad sugidda uu ku biiray wuxuuna ugu yiri waxaa ila jooga wasiir ku-xigeenka ninka la yidhahdo cadaala iyo agaasimaha guud ninka la yidhahdo cabdullaahi xiri ducaale iyaguna aan sheekooyin badan inaan barnaamijkan dhexdiisa ku sheegi doono haddii ilaa abaarihii 3 saac iyo rubi waaye subaxda 10 Oktoobar 2022 goobta aan joogo waa xafiiskayga waxaa ila jooga qaar ka mid ah madaxda warbaahinta ururada warbaahinta oo aan kuu sheegay oo shirka jaraa'id wada qabtay marka isku fahmi weynay in shirka jaraa'id la qabto la joojiyo iyo in kale ayuu qadka iga baxay shirka jaraa'id waan qabanay intii shirka jaraa'id lagu jiray inta warbaahinta imaanaysay waxoogaa waa yara daahnay 4 saac mar nala gaartay marka intii aan shirka jaraa'id ku jirnay ayaa Cabdiraxmaan Cadaala oo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ah wuxuu wacay ninka la yiraahdo Maxamed Ibrahim Pakistan oo ah gudoomiyaha SJS oo dalka dibadiisa jooga WhatsApp ayuu ka wacay waan iswici jireen markii hore wuxuu ku yiri haddii shirka jaraa'id maanta la qabto oo lagu qabto xafiiska SJS oo ururada warbaahinta dhan ay meesha ku qabtaan isugu yimaadaan Cabdalle iyo SJS ayaa la dagaalami doonaa waxaana ula dagaalami doonaa sida al-shabaab halkaas u fiirso 5 urur ayaa qabatay shirka jaraa'id laakiin Cadaala wuxuu gudoomiyaha SJS u sheegay isla markaas uu sheegay in uu la dagaalami doono SJS iyo Cabdalla Muumin halkaas ayay ka muuqatay jihada uu ninka u socdo iyo waxa uu rabay inuu sameeyo anaga shirkeena jaraa'id qabanay xafiiskayga iska joogay ururadii warbaahinta iyo madaxda ururada shirka jaraa'id la qabteen waa kala tageen shirka jaraa'id waa baxay idaacadaha waceen wuxuu isku dayay inuu idaacadaha ka joojiyo warbaahintii way sii daysay idaacada uu handaday si shakhsiyan ah oo noo soo gudbiyaa jira oo noo soo sheegay oo aan hebel cadeemaheeda hayno oo sheegi doono insha Allah marka isla xisaabtanka uu bilowdana aan rajaynayno aan ku soo dari doono hadii Ilaahay raad maalinkaas waa isniin maqribkii markii laga baxay 6:29 daqiiqo shaqaalihii ugu dambeeyay xafiiskuna ay rawaxeen ayaa waxa xafiiska yimid oo soo weeraray niman wajiga u duubay oo maskaraata ah oo qori wato qaarna tuuta gashan yihiin dharkana wad sugid qaarna dhar cad yihiin albaabka xafiiskeena waxa ku xiran meesha hore laga soo galo fingerprint oo qof aan haysan access ma soo gali karo xafiisyada nagu dhagan dad isticmaalaa jira dadkaas qof kamid oo baxay ayay afduubeen oo qori ku qabteen qofkii ay ku qasbeen inuu xafiiska albaabka kore ee laga soo galay dhinaca wadada inuu u furo sidaas ay ku soo galeen ilaa ay yimaadeen xafiiskeena wuxuu leeyahay kaamirooyinka wax duuba 24 saac oo la yiraahdo CCTV camera kaamirooyinkaas ayaa qabtay muuqaalkii iyagoo xafiiska isku dayay inay furaan way furi waayeen oo ay ka laabteen raggaas waxaa hogaaminayay ninka ahaa taliyaha nabad sugidda degmada Howlwadaag oo la yiraahdo Shakiib oo markii hore ka soo goostay xataa ma ka yimid al-shabaab ururka al-shabaab ka yimid isagoo dil geysanaya suuqa bakaaraha ciidan ka tirsan koox nabad sugidda soo qabteen tole anaga warbaahin ahal ma cadeyn karnay ana cadeynay ana ku cadeynay oo inta kula fadhiyo la geeyay nabad sugidda asoo bastooladiisa iyo dharkii dhiiga lahaa wata ayay ka siibeen dharkii nabad sugidda u soo galiyeen baabuurna waa soo saareen ciidanna waa u soo direen magaaladana waa u soo direen meelaha uu weerareen waxa kamid ah xafiiska SJS mar kale sida og tahay al-shabaab waxay weeraraan saxafiyiinta siyaasiyiinta cid kasta oo ka aragtay duwan waa weeraraan waana dilaan sarkaalka shabaab ka yimid ee nabad sugidda u tagay ceelkii hore u qabay ayuu wali la joogaa meesha la dhex joogaa kuwa soo diray sida Cadaala oo kalena
hoosay ka wada xiriiraan waana is og yihiin waa mu'aamarad aan caddayn karo inay wada xiriirsan yihiin oo shirqool isku daba taxan uu yahay meel alaala meeshii loo baahdan aan la tegi doono haddii ilaahay rabo intaa markay dhacday waxaa la tegey guriga aan degana isla habeenkaas 10 bisha Oktoobar 2022 maalin isniin ah oo habeen talaado soo galaya guriga aan deganahayna ma aysan iga helin oo ma joogin shir ayaan ku maqnaa dad xaafada degnaa ay handadeen oo qoryo ku qabteen 5 nin ay ahaayeen 2 kamid ah dharka tuutaha wadatay 3 kale oo darawalku uu ku jirana waxa dhar tuuta moodeen waxay wateen dharka cadaanka shibilka ay qabeen aniga habeenkaas talaadada soo galayso biri oo kale safar ayaa hore igu qorsheysnaa sida la socoto safarada waa badan yihiin shaqooyinkayga way badan yihiin familkayguna dibadiisa ku nool yihiin marka biri oo kale oo 12 ah safar ay qorsheysan subaxdii waxaan shir u tagay hotel Jazeera subaxda bisha Oktoobar 12 ay tahay oo maalin talaada ah shir anoo ku jiro hotel Jazeera ayaa telefonkayga WhatsApp waxaan ku arkay message call-yo dad isoo wacay maanan aqoon waan ku celiyay isma helin shirkayga iska sii watay dib ayuu telefonka igu soo celiyay telefonka markaan qabtay wuxuu ugu yiri waa Abshir Bukhari wasiir dawlaha madaxtooyada Xasan Sheekh waxaan hayaa cadaynta dhimaan wicitaanadiisa wicitaanka ugu horeeyay soo wacay waa saacadu markay 4 saac subaxnimo ayuu isoo wacay wicitaanka kalena waa 1:22 daqiiqo adeemaas sawirkiisa ku yaala 12 daqiiqo iyo 41 second ayuu wicitaanka dambe ila hadlayay kan ka horeeyayna qadar intaas ku dhow waxaana dhexmaray wuxuu yiri waxaan rabaa in shirkii saxaafadeed ee ay shalay qabateen ka laabataan oo aad soo saartaan war saxaafadeedkaas aad ku burinaysaan oo leedihiin annaga iyo dawladdu waa isfahanay shirkii jaraa'idon soo saarna shalayna khalad ayuu ahaa wuxuu igu daray wuxuu yiri waa ogtahay saxaafadda waxaan u qabtay inaan nin noocaas ahay oo maartay dad badan oo ururada warbaahinta magacyadoodu ii sheegay aan taageeray oo waxaan la qabtay oo maartay aan ahay nin oday ah oo waxa sameeyay aqalka sare baarlamaanka markuu ku jiray wuxuu yiri waxaan sameeyay barnaamijyo saxaafadda anfacay arrimahaas waa iga hadlay waan dhageystay si fiican aniga aslanbaba ilaahay wuxuu sii dabeecad aan dadka ku dhageysto waan dhageystay hadalkiisa kama dhaxgalin markii aan dhageystay halka uu dhameystaan ku yiri soo dhawo wasiir waa ku mahadsantahay wicitaanka shirkii jaraa'id aan qabanay shaqadeenu ahaa shaqadeeni aan qabsanayna sax ay ahayd shalay sida ay shalay sax u ahayd ay maantana sax u tahay ugu taaganahay shirkii jaraa'id waxa ka horeeyay war saxaafadeed uu soo saaray wasiir ku-xigeenka warfaafinta oo ay ku jireen qodobo dastuurka iyo dawladnimada dalkan halis ku ah taas ayaa u baahan in laga laabto oo in la saxa u baahan taas haddii wax laga qabto waa isu imaanaynaa waa ka shiraynaa waxaan kale u raaciyay xalayna waxaa la weeraray xafiiskeena xafiiska ururka saxafiyiinta SJS wuxuu ugu yidhi caddayn ma haysaa waxaan ku yidhi daqiiqad isi WhatsAppku igala hadlaayay ayaan ugu diray muuqaaladii CCTV kamerada ay qabatay raggii wejiga duubnaa ee tuutaha watay ee shakiib uu hogaaminayay oo xafiiska SJS soo galay ayaa markii WhatsApp ugu diray wuxuu ugu yidhi waa mahadsantahay waan helay waan soo baaraynaa arrintaas hadday dhacday waa qalad waana raadinaynaa waxaan laakiin kaa rabaa in arrintii aad ka laabataan waxaan ku idhi shaqadeennii aan qabsannay oo sax ahayd haddii ay tahay hal la wada hadlo wada hadal mar walban diyaar u nahay gogasha idinka dhiga wasaaradda warfaafinta u yeera shirka jaraa'id iyo war-saxaafadeedka ay qabteen iyo qaladaadka ku jira hal la isla fiiriyo annaga ka aan soo saarnay hal soo bandhigo waxa ku jira hal la arko waka dood dheer uu markaas sameeyay waa iga tegey shirkaygaan dhamaystay qadaan u soo baxay iyo salaad duhur safar ayaa igu jiray waxay ahayd inaan diyaar garoobo muddo saacad gudaheed airportka aan aado
marka waan soo baxay mar allaale markaan qadadii ku jiro 1:22 daqiiqo ayuu mar kale igu soo celiyey Abshir Buqaari telefoonka wuxuu ugu yiri arrintii ayaa weli idinka sugaynaa oo arrinta aan naga sugaysaa maxay ahayd shirkii jira ay shalay qabateen inaad ka laabataan already xilligan waxaan filayay kulaha inaad soo saarteen war saxaafadeed aad leedihiin dawlad ugu mahad celinaysaan aad leedihiin wixii aan soo saarnay waan ka laabanayo waa la isfahmayo annaga qaldaneen war waxaan ku yiri annaga saas uma shaqeynaniyo saas uma shaqeyno bulshada rayidkaan nahay ururada saxaafadaan nahay waxaan ka hadalnay arrin walaac aan xaq u leenahay oo legitimate ah oo ay mudan tahay in la dhageysto waxaa kula gudboon inaad inta walaaca qaadid shir qabatid dhinacyada isu keentid laga wada hadlo waxaan midda labaadna waxaa iri shirkii muuqaaladii aan kuu soo diray weerarka xafiiska lagu soo qaaday maxaa kaaga baxay wuxuu ugu yidhi arrintaas niyo waan daba galay dhacday waaye inaad dib ugu laabanno ma ahan waa inaan hore uga soconnaa oo ma aragtahay xali dhaliil laga noqdo waxaan ku yidhi haddii dil uu dhici lahaa ereygaasaan ku yidhi haddii xataa dil uu dhici lahaa oo meeshaas ama aniga lagu dili ama qofka lagu dili lahaa waxaa dhihi lahayd ha laga socdo mas-uuliyad darradaada halkaas gaarsiisantaan ku yidhi hadday sidaas tahay marka waxaan ku yidhi adeero isku waddo uma soconee aan isdayno waayo yiri waa iga baxay waa kala tagnay waan diyaar garoobay waxaan aaday garoonka diyaaradaha sida caadiga ah waxay ahayd inaan check in ka sameeyo maadaama flight dalka dibadiisa aan raacayo 9 saac flightkeygana wuxuu baxayay 5 galabnimo garoonka aan haddaan tagay waxaan qaatay boarding baski baasaboorka la garaacay waxaan fariistay maqaayadda qaybta VIP-da ee dadku fariistaan oo shaah lagu cabo dadka diyaaradda sugaya ayaan fariistay mar alaal markaan fariistay ayaan ogaaday salaada casr maadaama aan maqrib ku aadanahay ayaa masaajid galay waan soo tukaday waan soo laabtay miiskii anigoo fadhiya ayaa waxaa soo wacay nin la yidhaahdo Cabdiqaadir Maxamed Cadde oo wasaaradda warfaafinta ka shaqeeya telefoonkiin ka jawaabay wuxuu igu yiri waxaa jira biri kulan aan kugu casuumay wasiirka wasaaradda warfaafinta Daawud Aweys ayaa idin raba waxaana laga wada hadlaa arrimihii dhacay iyo shirkii jirayd weliba dadka la wacaayo lambar 1 ka tahay waxaa la yiri 1 horta Cabdalla wac sidaasaan kuu soo wacay anigu marka ninkaas wicitaankiis waxaan u qaadanaya si daacadnimo ah dhibaato hore kumaanan ogeyn wax problem hore uma qabin si daacadnimo ah oo wanaag ku jirtaan telefoonka uga qabtay ugu jawaab waxaan ku yiri Cabdiqaadir safar aan ahay hadda ma safar ah shirkaasna waa fiicay hal la qabto laba arrimoodna samee arrinta koowaad talaan ku siinaya arrinta labaadna waa arrinta ku saabsan ka qaybgalkeena waxaan kuu soo dirayaa dad wakiil iga ah aniga talo iyo tusaale ku dara shirka wixii ka soo baxana waan fulinaynaa dhinaceena ka SJS ahaan iyo ka ururada saxaafadda ahaan talada aan ku siinayna waxay tahay shirar badan ee wasaaradda warfaafinta qabatay oo madhalays noqday ilaa haddana madhalaysnimadii ayaa ku socotaan si shirkiina iyo waxqabadkiina madhalaysnimada uga baxo dad waxtar leh tayo leh shuruucda saxaafadda yaqaana xorriyatul qowlka aniga hadda kaala hadlaayana fahamsan in wadanka uu hagaagana raba u yeerta oo dadka talada geliya wuxuu yiri shirka biri waaye 7 saac waaye wasiirka rabo wuxuu yiri fariintaadana waa qaadaya laakiin waxa ka soo bixi doono in natiijo ay yeelan doonaan aniga wuxuu yiri madama qaadi kari way haay telefoonka ayaa miiska saaray Cabdiqaadir Maxamed Cabdi iga soo wacay aan qadka uu ka baxay telefoonka hormuud ayuu soo wacay miiskan saaray laptopkayga ayaan kala furtay miiska waxa ay saaran baasaboorkayga iyo boarding baski telefoon aan dhigayna dhinaca kale uu saaran yahay laptopkayga ayaan kala furtay si aan emailo markaa ii yaale uga jawaabo waxaan haystaa qadar 40 daqiiqo oo diyaaradayda ka dhiman 10 daqiiqo markuu iga sii maqan yahay telefoonkii ayaa waxaa soo galay qof dumar ah marka ay ii soo jirto 5-6 talaabo
ay ugu tiri waa kan gadaasheeda waxaa soo socda 2 nin oo mid dharka booliiska xiran yahay koofina ugu jirto telefoon ayuu gacanta ku wataa nin ayaa dhinaca kala socda jaakad iyo surwaal aan islahayn iyo surwaal maaragtay jeans ah iyo jaakad midabkeeda qaxwaya waxaan ka wadaa jaakad iyo shaati aan islahayn oo noocyada maaragtay isku qaadan ah ayuu isku wataa ninku waa buuran yahay waa madow yahay wuxuuna la socdaa ninka booliiska ah gabadhii ayaa ugu soo hormartay waxay ugu tiri adiga waana kor taaganta kor aan u fiiriyey ma anigaan ku yidhi haa adigaan ku rabnaa intaa markay dhahaysa ninkii dharka booliiska xirnaa iyo ninkii kale aan kuu sheegay dhammaantood magacyadooda ku siin doonaa ayaa soo wada istaaga meesha ninka dharka booliiska xirnaa waa taliyaha booliiska ee aeroboortka Aadan Cadde waxaa la yidhaha magaciisa Cabdifataax Bashiir waxay isku reer yihiin Cabdiraxmaan Cadaala gabadha aan kuu sheegayo xijaabka madow wadata buurana madow aan kuu sheegayo waxaa la yidhaha Xamdi Xasan waxaa waaye taliyaha nabad sugidda garoonka Aadan Cadde waxay isku reer yihiin Cabdiraxmaan Cadaala ninka la socda waxaa la dhahaa Mahad Carab Dhiblaawe waxaa markaas loo soo magacaabay terminaalada nabad sugidda waxay u soo magacaabatay terminaalada aeroboortka waxaa adeer dhow u ah madaxweynaha Xasan Sheekh ninka Mahad Dhiblaawe la yiraahdo wuxuu isku dayay in uu soo wareegto oo telefoonada iyo dukumiintiga iyo sarnaamiiska uu gacanta la galo alaabteeda ha taabanin aan ku yiri ninkii booliiska ahaa aan kuu sheegay taliyaha aeroboortka ahaa ayaa wuxuu ku yiri alaabtiisa dhaaf midka booliiska wuxuu wataa telefoonka ayuu furay waxaa ku jira sawirkeyga sawirku saa u fiiriyey anigu u fiiriyey hawa isagu yiri markaas wuxuu yidhahda adigaan ku rabnaa soo istaag maxaa iga rabtaa baan ku yiri adigaan ku rabnaa soo kac igu dheh ii sheegaan ku yiri waxaa iga rabtaan weli waa fadhiyaa halkaan kuma wada hadlayna soo kac aan kula hadlaynaa yidhi dukumiintiga iyo telefoonada meesha ii saarnaan qaatay xariistay jeebkan gashtay baasaboorkiina waxaan gashtay boorsada laptopkeyga boorsadan gashtay waan xirtay ninkii Mahad ayaa mar kale isku dayay inuu boorsada ila qabsado waan ka reebay waxaan ku yiri ha taaban alaabteyda saddexdooda iyo aniga israacnay waxaan ka baxnay aeroboortka qaybta dadka duulaya ay ka soo galaan internationalka ayaan ka baxnay banaanka markaan u baxnay ee aan ku sii socono dhinaca boorsooyinka lagu soo hubiyo oo qaybta VIP-da ay dhahan ku dhow ayaa Cabdifataax Bashiir ninka la yiraahdo taliyaha aeroboortka Aadan Cadde booliiska uu soo booday jeebkay gacmaha la galay surwaal jeans aan wati ayuu gacmaha la galay markuu gacmaha la galay ayaan ku yiri alaabteeda ha taabanin dukumiintiga aad wadatana itusi ID card oo itusi wuxuu yiri waxaan ahay taliyaha booliiska waxaa ku yiri warqad dukumiinti cadaynaysa inaad xirayso ama qabanayso ma wadataa wuxuu ugu yiri maya waa amar markaana telefoonkeyga ay gacmaha kula jira wuxuu la baxay 2 telefoon oo igu jirtay jeebka iyo lacag $1,200 ayuu Cabdifataax Bashiir gacantiisa ku qaatay waxaan tagnay xafiis ay nabad sugidda ku leedahay VIP-da waa aeroboortka qaybta VIP-da ku dhegan qol aad u yar oo ciriiri halkaas fariisanay markii aniga la ifriisiyay gabadhii nabad sugidda ka socotay Xamdi Xasan la yiraahdana ay gashay ayay waxay u yiraahdeen Cabdifataax Bashiir iyo Mahad Dhiblaawe waxaa keentaa boarding bus-ka diyaaradaada meeqa ka dhiman diyaaradaada waxaa ka dhimanaya 40 daqiiqo waxay u yiraahdeen diyaaradan kula hadlaynaa si aysan kaaga tagin laakiin waa been boarding bus-kaaga keen boarding bus-ki ayaa u dhiibay wax baaga ma wadatay u dheen boorsay aan ku yiri boorsayda already cargo-ga gashay ilaa boorsooyinka waaweyn waxaa la mariyaa waa luggage waxaa la mariyaa qaybta checking-ka la mariyaa si maartay diyaaradda loo saaro marka Mahad iyo Cabdifataax Bashiir way soo laabteen waxay u hartay Xamdi Xamdi waxay tiri magacayga u sheegay waxay i weydiisay qabiilkayga su-aasha labaad ku xigta waxay yaa tahay waxaan ku iri aeroboortka Aadan Cadde
qofka ka duulaya qabiil ma u baahay iimaysa jawaabin waxay u dhahday yaa tahay ii sheeg anigooba waxaan ahay ay tiri marka aniga xamdi ah waxaan ahay reerkaas marka xamdi ma adiga aan ku yidhi markaa magaceeda ay sheegto haa ay ugu tiri waa aqaana inay reerkaas taa ku ogahay laakiin aniga keyga maxaa uga baahanta qof dhoofaya safraya ayaan ahay marka inaa ii sheegtido waxay tiri ayaan rabaa aan ogaado waa u sheegay intaa markay dhex martay waxay ugu tiri wasaaradda warfaafinta wax miyaa idiin dhexeeya markaas waxaan ku iri wax sidee ah wax khilaaf miyaa idiin dhexeeya waxaan ku iri shir jiraacid shalay qabanay iyaguna shir jiraacid laba maalin ka hor sabtidii qabteen marka arrintaasaa jirta ayaan ogahay laakiin khilaaf kale oon ogahay ma jirto qof miyaa la hadashay igu tiri hadda intaa meeshaan soo gashay haa baan dhahay yaa waa igu tiri cabdiqaadir maxamed caddo wasaaradda warfaafinta u shaqeeya ayaa isoo waca waan ku iri shir igu marti qaado waxaan ku iri kama qayb geli karo waan safraya ma ahayna igu tiri inaa la hadashid maxaa dhacayaa iri waxay igu tiri aniga waa maqnaa shaqada maanta waa ka maqnaa waa la isoo wacay waxaa la yiri ka gaar hadduu baxaya shaqa kuma jirin maanta haddii aadan maanta saa samayn lahayn waad bixi lahayd waad safri lahayd aniguna ma imaan lahayn waxay la gashay waraysi waxay igu tiri ururkaaga magaciisa ii sheeg waan u sheegay computer meesha u yaalay gashay waxay soo baxsatay shirkii jiraa'id oo ku jiray warbaahinta ku jiray waxay ugu tiri qoladiina saxaafadda waa dhib badan tihiin hadalka maad iska dhaaftaan arrimo noocaasay maragta ay la gashay kadib waxay aaday historygay markaas waxay tiri hooyada ayay tahay qabiilkeed haddana ka doodka keeni maxaa uga baahanta hooyada qabiilkeed may inaan ogaadaan rabaa aan barto intay ku dhalatay intay ku noolaan jirtay arrimo noocaas oo kale ah ayay ila gashay intaas markay socotay waxaan wargeliyey tiimkayga qaar ka mid ah in aan joogo qaybta VIB-da eraboorka halkaasna lagu hayo ayaan wargeliyey teleefoonadeydii nimankii waxay u soo wareejiyeen xamdi laakiin lacagtii ma isa soo wareejin ilaa hadda cabdifataax bashiir taliyaha booliiska garoonka aacade wuxuu iga dhacay $1,200 ilaa hadda iima soo celin waxyaaba aan sharciga la sugaay ayay ka mid tahay haddii ilaa halkaa markay maraysay oo aniga iyo xamdi ay arrimo badan oo dood ah na dhex mareen qaladaadka nabadsuwada ay samayso ay ka mid tahay in airboortka uu noqday meel ummadda laga fasaadiyo oo qofkii safar ahba musaafuriinta lagu dhibo oo dadka inta lagu qabsado qabiilkooda la weydiiyo mararka qaarkood lacag baada la weydiisto ay noqotay ayaan ka sheekaysanay waxaa yimid baabuur yar oo baabuurka saarifta soomaalida ay dhahdo ah ama dadka xamarku nool ruunad ay dhahaan oo cadaan ah oo uu wado nin darawal ah oo dharka booliiska wata boorsadeedii yarayd oo gacanta ayay ii saareen xamdi ayaa iga soo horbaxday waxay igu tiri baabuurkan raac inta baabuurka aanan raacin ayaa waxaa dhacday marka iyada ayaa la soo wacay dhowr jeer telefoon isku xigxiga ayaa usoo dhacay oo ay aniga iiga waramayso ma kula joogaa waa ila joogaa ay leedahay qofka dhinaca ka hadlaaya ma maqlin aniga laakiin iyada waxay ku jawaabaysa unbaa maqlaa qofka telefoonka ay kula hadlayso marka waxay leedahay wuu joogaa yaa kuu sheegay waxaas yaa ku dhahay xagee ka soo maqashay warkasuu kugu soo gaaray arrimo noocaas oo kale weydiinaysaa qofka isagana waxbuu u sheegayaa qofkii u dambeeyey marka ay la hadlaysay ayaa wuxuu ku dhahay waxay ku dhahaysay iyada baabuurka noocaas looma baahno albaabkan waa xiranya meeluu ka soo gala ma leh baabuurkaaga qori miyaa saaran qori micnaha baabuur cabdibilo waaye baabuurka soo socda sidaan dareemaayo marka waxay weydiinaysaa inuu yahay kan qoriga saare ku rakibaya iyo inuu yahay midka dulbanaanka in kale waxay kaloo dhahaysay ninku waa nin mas-uul ah nin maaragtay dhib wada ma ahan ma u baahnid waxaasoo dhan ma u baahnid marka waxaan fahmayaa in niman ciidan badan soo wato dad hub wato badan wato oo anigaba la ii ekeysiyey ama la iga dhigay nin ciidan haysto badan hub badan haysto oo in dagaal
maaragtay lala galo ay tahay wax noocaas oo kale ah fikir noocaas oo kale ah ayaa meesha igaga muuqda marka waxay ku leedahay waa nin mas'uul ah dagaal iyo buuq meesha kama jiro kaligiis waaye wax problem ma jiro waxaas uma baahnid adiga kaligaa imaan kara ayay ku leedahay waxayna dhahaysaa albaabkan airportka waa la xiray waqti dambe waaye marka 12 saac way sii dhaafaysaa diyaardeedu way baxday albaabka kale soo istaagay ku tiri albaabka basaska sahal ay ka baxaan dadka garoonka dhoofa yaqaana dhinaca qaadka xiga dhinaca jaadka uu ka soo dego ku beegan ayay tiri soo istaag baabuurkii caddaa ee saariftaa soo istaagay boorsadeedii gacantaa la saaray boorsadeedii kale waa maqan tahay dharka iyo waxa waa maqan yihiin waxaa la isaaray baabuurka shirkiisa dambe ayaa la isaaray hal nin oo booliis ahna xagga hore ka saaran yahay wadaa waxay ugu tiri xamdi ninkaan ayaa raacaysa oo soo kaxeeyey albaabka waxaan ka baxnay baabuur jaale ka baxaan ganjeelka laba fidqo waa saasoo u foormaa markii la furay ee aan ka baxnay ayaa baabuurkii aan saarnayn wuxuu afkiisa saaray dhinaca aeroboortka ayuu u jeestay wuuna istaagay ninkii booliiska ayaa soo degay albaabku iga furay wuxuu ugu yidhi soo deg horteenna waxaa taagan 10 tilaabo wax ka yar waxaa taagan baabuur cabdibila ah oo rinjiga madow ku buufsan yahay laakiin qori dusha kama saarna waxaa hareerta ka taagan shirka dhinaciisa taagan nin tabeebo u xiray maro go'baati oo la jaray madaxa ugu xiray aad u madow ayaa wadada taagan jidka dhinaciisa qorina garabka ugu jiro garabka ugu jiro ninkii booliiska soo horkacay baabuurkii Landcruiserka saariftan ka soo degay boorsadeedii gacantu wadaa baabuurka cabdibilaha shirkiisu galay ninka darawalka oo wali aan soo degin ayuu u dhiibay aniguna intuu saas u qoraansaday shirka ayuu wuxuu ugu yidhi baabuurkana raacaysaa ninkiina waa kan ayuu yidhi anuu i tilmaamaya shirkii markaan la soo sinay baabuurka cabdibilaha albaabkiisa waa wada furanya ayaa saa u qoraansaday nin ayaa ku jira timuhu dhinacyada u daadsan yihiin jilicsan yihiin oo aa moodo in qolyaha suufiyada camal timaha reebta camal uu yahay bushintaan ay dhacday ay guduudan tahay ma aqaan ma waxbaa kaga dhacay iyo dadka balwadda isticmaala qaarkood bushumahan way wada guduutaan oo way ka dhacaan indha gudguduudan caata ah oo asna madow magaciisana markii dambe aan helay la yiraahdo Cabdiqani la iguna sheegay inuu yahay taliyaha nabad sugidda u qaabilsan checkpointyada afarta ah ee airportka laga soo galo ninka xukuumadda Cabdiqani la yiraahdo halka markay marayso waxaan rabaa inaan ku fahansiiyo waxaan ka soo baxnay al-Adaala iyo shirki jaraa'id wicitaanka Abshir Bukhari waxaan taaganahay airportka si dadka daawanayna u fahmaan waxaa meesha jooga Cabdifataax Bashiir taliyaha booliiska airportka Xamdi Xasan taliyaha nabad sugidda airportka oo isku reer ah ku reer ah Abshir Bukhari iyo Adaala taliyaha baabuurkiisa la isaaraya Cabdiqanina ku reer uu yahay marka intaan weli marka laynka lagu socdo waa halkan laynka qabiilka kuwa isoo weeraraya kuwa airportka soo galaya kan shirki jaraa'id qabanaya kuwa isoo wacaya waa ilmaadeer laakiin xilligaas dawladda ka tirsan mas'uuliyad kala duwan ay hayaan laakiin mas'uuliyadda dawladda intay meel soo dhigteen ayay aniga igu xadgudbayaan awoodii dawladda oo la qabiilay igu xadgudbayaan baabuurkii ayaan galay markii baabuurka la saaray Cabdiqani wuxuu yiri oo maxaa la iiga dhigay nin kale ninka waa nin oday oo mas'uul ah ninka ay sheegay aniga waxaan ku yiri waxay ku sheegeenba nakaxay boorsadeedii ayuu shirka saaray aniguna dhexdan fariist bidixda ayuu baabuurka ka wadaa shirka steering ku yaala asaga saaray Cabdiqani midigtana waxaa soo fuulay ninkii aan ku sheegay dhulka taagnaa ee marada baatiga tabeeb ahaanta madaxa ugu xirneed oo dharkana wada soo dawtay oo qori wata ayaa dhinacaan midig naga fariistay baabuurka maraadihii ayaa loo xiray waan dhaqaaqnay waxaan marnay wadada airportka uga baxda dhinaca Marine Gate dadka yaqaana way garanayaan dhinacaas horta marta albaabka Marine ka soo baxda ama soomta soo dhaafta waxay soo martaa iskool booliisiya dekada ayaan marnay waxaan marnay wadada hoose ee marta maxkamadda irideeda xabsiga dhexe halkaas aan marnay waxaan ka soo galnay daljirka meesha la yiraahdo daljirka markaan ka soo galnay ayaan controlka dib ugu soo laabanay daljirka markaa ka soo gasho ee aad u soo socoto dhinaca xaawataag intaadan soo aadin dhinaca midig wada yaraa jirto oo dhinaca boondheer madaxa gashata
waa godka jilco meesha uu ku yaal halkii godka jilco ayaa u leexanay saacaddu 11 saac maqrib ayaa 30-40 ayay kusii dhowdahay baabuurka aan saarnaa shirkii saacadda ayaa marka ka fiirinaya sababtoo aan telefoon ma saacadna mooto albaabkii godka jilco koowaad isbaarada waa dhaafnay baabuurka bidix ayuu waxyar isu laabay kadibna wuxuu madaxa u leexiyey albaab kale oo weyn oo madow ayuu leexiyey albaabada dhinaca u furmaa albaabka dhinaca bidixda wuxuu ku leeyahay meel albaab yar dadka ka soo baxaan waardiyahan uu joogo baabuurka imaanaya kor uu ka fiiriyo haddii baabuurka meesha uu taagnaa daqiiqado 20 ah oo nalaga furi waayo ayuu cabdiqaniga dhawaaqay uu ku yiri meesha ma naga furtaan waxa lagu yiri waxa u baahan tahay fasax telefoon la soo baxay qof ayuu la hadlay aad buu u caytamay wuxuu yiri meesha waa meel loo soo jiif tago shaqo ka soconin oo dadka joogana waa qashin maarta dad kale meesha in la keensado weeyo ma ahan meesha inaan lagu soo lugaysa adiga aad buu u cayay meesha nimankii joogay nin baa ka soo baxay albaabka soo istaagay wuxuu ku yiri waxa u baahan tahay fasax inaad weydiisatid ninka waa naga noqday albaabkeen taagana abaar yar haddaan taagnaanay gadaal waxaa soo istaagay baabuur kale oo laba shirey ah qooqan ah baabuurtan bullet proofka high kasta ah ciidanka gadaal ka raacaan oo cad nin ayaa ka soo degay gaaban baryar koofi wata midabkeedu inay cagaar tahay aan jeclahay koofidan intuu soo riixay ayuu meelahan keenay aad wajigiisa ugu qarinaya marka waan arkaa oo miraayada kore ayaan ka arkaa ninka uu soo degay uu soo wareegtay wuxuu la soo sinmay kursigii darawalka ayuu la soo sinmay baabuurka aan ku jiray cabdibilaha ah cabdiqani oo baabuurka waday ayaa furay shirka wuxuu ku yiri ninkii markuu la soo istaagay wariyaha shakiib haye markaas ayay igu dhacday in shakiibka xafiiska soo weeraray shalay uu ninkan yahay anigu marka shirkan fadhiya nin xaggu iga xigaa intaas hore u soo ruqaansaday oo aan saas u fiiriyey ayaa ku yiri shakiibka la sheegay ninkan ba waa ninka gaariga ku yimi gaariga dambe ka soo degay waa markaas ilama hadlina wuu qoslay markaas waxaan ku yiri xafiiskeena shalay maxaa u soo weerartay markaas wuxuu ku yiri albaabka iga furweys igu jawaabay waxaan dhahay albaabka laga furaa waxaa ka horeyso inaad ku socoto waddo sharci ah yaa kuu soo diray adiga booliis maa tahay taleefon maa naga soo wacday warqad booliis maa noo timid oo noo imaada maana tiraahdeen nabad sugidana ma booliis baa horta maxaa xafiiska horta idin keenay waddada sharciga ku socota maxay tahay markaas wuxuu u yiri taleefonka waa weyne asaa dhahay taleefonkayga inaa hesho ama raadiso xaq buu ma leedahay inaa ama raadiso ama hesho taleefonkayga xaq buu ma leedahay doontaas markay dhex martay ninkii waa aamusay waana naga tegey albaabkii ana laga furo marka saacaddu waxay kusii dhowdahay 12 maqrib xilliga muqdisho albaabkii markaan gudaha u galnay baabuurka cabdibilaha wuu galay meeshu waa interlock ayaa saaran dhulka midigta guryo xafiisyo ah oo hal albaab laga galo ayaa ku yaala midigteenna horteenna dhismo yar oo jaraanjar dhinaca bidix kaga taal iyo meel la harsado oo balabala camal ah ayaa ku taala dhinaca bidixdana dhir ayaa ku beeran ubaxyo fiyooryaal ah waxaas ayaa ku beeran baabuurka intuu saa u dhaqaaqay ayuu kusoo kala dhex wareegay meeshii gudaheeda kusoo kala dhex wareegay markaa wuxuu soo u joojiyey dhinacii aan ka soo galnay albaabka aan ka soo galnay cabdiqani shirku iska furay waa degay ninkii askariga waa degay anna waa soo degay albaabkii marka aan ku tilmaamay hadda ee midigta ku yaalay oo markaan bidix noo aadan ayaa waxaa soo istaagay nin dheer shaati cad iyo suraal madow qaba telefoon iyo qalin gacanta ku haysto magaciisuna aan markii dambe baran doono fanax ayaa la dhahaa qabiil ahaan waa ogaadeen barnaamijka aan bixinayo waraysigan waa muhiim inaan sheego qabiilada iyo saraakiisha iyo dadka aadaan u sheegi doonaa mana ka xishoon doona sababtuna aan u samaynayn wax kale ma ahan dadkana daawanayo waa inay ogaadaan soomaalidu waxay isku fahantaa identity ama qabiilka isku fahantaa ID cardka hadda soomaalidu ay leedahay waa qabiil iyo qabyaalad aeroboortka iyo godka jilcow iyo meel kasta oo aan tagayna qabiila la weydiinay si ay marka Soomaalidu u fahanto dadka waxa sameynayay
iyo meelaha waxay ka dhacayeen waxaan ku dadaali doonaa insha allah inaan cid kasta qof kasta markaan sheegayo aan qabiilkiisa ama reerkiisana aan raaciyo. Fanax ayaan horkacay, Cabdiqanina waana raacay, waxaan galnay xafiiskii qolalka 1 2 3 ayaan jeclayna ahaayeen ka u geeseeya oo musqul dhinaca uga taalo ayaa naloo furay oon galnay. waa xafiiska uu ku shaqeeya Fanax waa nin baara ah oo ka tirsan nabad sugidda godka Jilcow dadka wareysiga la yeesha sida uu ii sheegayna laga soo bedelay xarunta baarista xisbiga ama dadka qaar ay u yaqaanaan madaxtooyada oo iyaduna dad lagu xiro xabsiyada sharci darrada ee wadan ku yaal ay labada meelba ka mid yihiin godka Jilcow iyo kuwa kale oo sheegi doona hadii Ilaahay inta barnaamijkan lagu jiro. halka markii aan tagnay xafiiska waxa soo dhawaatay salaadii maqrib. Cabdiqani ayaa alaabteeda boorsadeyda gacanta ku wareejiyay Fanax wuuna macsalaamay wuxuuna ugu daray taliye ninka waa mas'uul waana saxafi ogow intaas ayuu dhahay. albaabku ka baxay Shakiib oo daba socday oo albaabka soo istaagay albaabku ka laabtay. Shakiib laftirkiisa albaabku ka laabtay. waxaa isku haray aniga iyo Fanax wuxuu fariistay xafiiska computer cad oo desktopka all in one ka la yiraahdo isku samaysan iyo printer cad ayaa u saaran xafiiska kursiga xafiiseed ayuu ku fadhiyaa miis ayaa hor yaala anigu miiska dhinaciisa kala soo fariistay 3 kursi ayaa taala miis yar oo miiska qaxwaha la dhaho kan shaaha lagu cabo ayaa hore yaala tarmuus ayaa saaran iyo koob hal xaba ah oo aan u maleeyn galabtii shaah lagu cabay ayaa meesha saarnaa. xafiiskan waa xafiiska mid baarista nabad sugidda oo isticmaasho dhinaceen albaabka dhinaciisa shelf ama qaanado ayaa ku yaala. qaanadaha waxaa saaran dhowr fayl mid kamid ah waxaa ku qoran assalaamu calaykum ayaa ku qoran faylash mid kamid ah. kor waxaa saaran kombiyuutarro aan u maleeyn inay inta isticmaaleen ay iska qashin ahaan meesha u saareen. faylal kale oo NISA 0147 ay kamid tahay ayaa iyadana ku qoran faylasha qaarkood ah ku qoran. faylashaas ayaan isha markiiba la raacay inta meesha fadhiyay. Farax waa soo galay nimankii markuu macsalaamay wuxuu ugu yiri soo dhawo kursi shishaan fadhiyay kursiga sokaan soo fariistay isaga u dhow miis ayaa noo dhaxay iyo computer dhinaca isaga leexiyay buug ayuu la soo baxay cad baalashiisu cad yihiin ayuu la soo baxay qalin buuga dhexdu ayuu ka bilaabay. taas macnaheedu waxa qoraallo hore ayaa ku qoran dad hore midhaa wareystay oo wax ka qoray. waa godka Jilcow dhexdiisa meesha aan kaaga sheekeynay. wuxuu yiri iga bilaabay magacaaga ii sheeg magacayga u sheegay wuxuu i weydiiyay qabiilka. waa xafiiskii labaad ama meeshii labaad oo meel dowladeed ah oo aan tagaayo isla maalinta saacad gudood ee qabiil lagu weydiinayo. dadkuna inay saa u fahmaan ayaan rabaa in nidaamka dowladdu ama xafiisyada dowladdu ay sidaas tahay ama ay u shaqeeyaan in dadku u fahmaan rabaa. waxaan iri magaciisa maadaama hore u soo maqlay Fanax waxaan ku weydiiyay godka Jilcow waa joognaa in nabad sugid qabiilna ma u baahantiin. intuu igu qoslo wuxuu igu dhahay waa iska formal oo maarata waa la sameeyaa ayuu ugu dhahay. inuu ogaadeen yahay isaga ii sheegi doono markii dambe oo aniga xagga hooyada ay ogaadeenka iga dhaleen hooyadii ayaa ogaadeen ah. taas way anfacday mar dambe ayay anfici doontaa. Fanax wuxuu waday wareysigii su'aalaha weydiiyay waxaa kamid ahaa maxaa idin dhaxeeya adinka iyo wasaaradda warfaafinta. waxaan u sheegay shirkii jiraa'id ee Al-Cadaala uu qabtay iyo kii ururada saxaafadda ay qabteen ayaa u sheegay. wuxuu ugu dhahay ma heli karaa waxaan ku yiri wuxuu yiri xagee ka heli karaa waxaa ay website-keena hadda gal kala soo deg waana sax website-ka ku daacanta. computerkii ayuu shitay uu i weydiiyay waxaan u tilmaamay uu qalqalday waan u saxay uu helay shirkii jiraa'id qoraalkii uu la soo degay waa arkay ugu dhahay ururada ay sharaxo ay dhahay marka ururada halkan ku qoran ayuu yiri ii sharax ururadii uu sharaxay SJS aan uga bilaabay yaa xogay guudka oo ana ayri wuu qortay taleefankayga weydiiyay wuu qortay fasoji weydiiyay
iyo xogeeye guud ka ahaa iri faarax cumar nuur taleefankiisu u weydiiyey wuu qortay qabiilkiisu u weydiiyey waa u sheegay saasuu buug ugu qoraya wuxuu u gudbay Soma wuu i weydiiyey qabiilkooda iyo yaa ka ah madax waa u sheegay simho i weydiiyey wuxuu yiri yaa ka ah gudoomiye qabiilka ii sheeg waa u qoray inta markuu dhameystay ayuu wuxuu dhahay problem hore wasaaradda warfaafinta idinka dhaxeeyay miyaa jire sideen u wada shaqayn jirteen waxaa yiri problem hore naga dhaxeey ma jiro laakiin maadaama ururada saxaafadda iyo bulshada rayidka difaacayaal aan nahay wasaaradda warfaafinta marna waa isqabanaa marna waan heshiinaa oo waa dabciga caadiga ah waxaan uga sheekeeyey media lowga iyo processka uu soo maray iyo khilaafaadkii sharciga saxaafadda ka dhici jiray waxaan uga sheekeeyey wariyaasha la xirxiro dhibaatooyinka dhici jiray waxaan uga sheekeeyey kiiskii maxamed cabdiwahaab abuuja oo wasaaradda warfaafinta gaar ahaan cadaal oo ku lug lahaa in la afduubo 5 bilood uu xirnaado nabad sugidda ay afduubto ayaa u sheegay fanax wuxuu ahaa marka xaqiiqda kuu sheego cabdulqaadir nin waaqici ah aad u fahamsan xaaladda dalka waxa dhacaya iyo warbaahintana la socdo isagaan igaga sheekeeni doona marka dambe ay dhihi doona warbaahinta waa in dhageystaa oo la socdaa inta markaa uga sheekeeyey ayaa waxaa la soo galay salaadii maqrib wuxuu ugu dhahay salaada maqrib la gaaray aan tukano aniga waxaan ku yiri weyse waa qabaa aniga galabkaan sidii aan casar u tukaday ayaan weysadeedii ku qabay weli waayaan ku yiri marka kursigii aan ku fadhiyey dhinaciisa dambe ayaa wax alaab meel saarneyd ayaa waxaa dul saarnaa dhar la iska siibay tuuta ah oo surwaale iyo dhowr shay wasaq loo siibay meesha saarnaa korkooda waxaa sii saarnaa sijaayada lagu tukado salliga lagu tukado ayaa sii saarnaa salliga ayuu ii soo qaaday ii dhiibay wuxuu igu yiri tuko anna waan soo weysaysanaa wuu iga baxay qiblada xagee waa qibladu ii tilmaamay marka mukayf ayaa meesha korkeyga ka shiday mukayf ku aadkiisa waaye halkii ayaan dhigtay meesha salaadii maqrib ku tukaday kabahaygan soo gashaday kursigan ku soo laabtay isla qolka dhexdiisa fanax inuu tukaday Allahu a'lam laakiin waa iga maqnaa meel uu ku soo tukaday war uma helo laakiin waa soo laabtay kursigiisu ku soo funaatay buugii la kala baxay wuxuu yiri meesheeni ayaan ka wadeynaa waayaan ku yiri wuxuu i weydiiyey saxaafadda iyo sida ay maarta howlgallada hadda socdo uu uga waramaan waxaa iri saxaafad madax bannaan oo howlgallada hadda socda ka warrami karta ama waxa ay maarta dawladdu dagaalka ay ku baaqday la leeyahay shabaab ay ku qaaday si fiican uga warrami kara ma jirtaan ku ilaa hadda waxaan ku iri laba propaganda socdo propaganda waxaa iri waa tan nabad sugidda oo ah halkaasaan ku duulnay intaan ka dhacnay 100 aan dilnay 200 aan qabanay oo cadeyn aan lahayn sidaas aan u sheegaya propagandada labaad waxa ay waa propagandada shabaab oo ah 100 aan dilnay 50 aan qabanay intaan qabsanay intaan gubnay oo cadeyn aan lahayn labadaas propaganda waxa ay waa inay u dhaxaysaa wax kala bixin kara waxa kala bixin karana waxa ay waa saxaafadda madax bannaan tiina ma jirtaa ay waa la aamusiyo waa la caburiyo sababta aan halkan u fadhiyana waa sidaas doodii markay intaas noo marayso cabdiqaadir albaabka waxaa soo furay 2 nin oo dhalinyaro ah nin shaararkan dunta ah oo laakiin midabkiisa pinki yahay ayaa albaabka soo istaagay wiil dhalinyaro ah oo ilmahan 19-20 jirka ahna uu ka dambeeyo wuu soo gudbay fanax ayuu soo ag istaagay ninka asaga ahaa ee albaabka soo istaagay shaatiga binkiga watay oo dhalinyaro ah oo dhuuban wajigiisa xogaa yara dhuubaya ayaa wuxuu yiri shaah maxaa cabaysaa ama kubashiin waxaa igu soo dhacday isla markiiba dareenkeyga uu itusiyey tababaradii hore aan qabay iyo tababarada aan bixin jiray iyo marka waxaan dhex joogaa xarun sirdoon dadkan aan la fadhiyo waa jawaasiis waxay rabaan inay su'aalo i weydiiyaan hadalna iguma dhamma marka waxay qorshaysteen inay isumeeyaan oo dilmi ama war laga dhaliyo ama hal idilo
ama war kale ha la iga keeno waxay goosteen in la isumeeyo arrintaas waxay aad iigu sii kala cadaatay markii arrintan aan dhowr bilood kale ku dhex jiray iyo Cabdulqaadir wareysiyadii aan la yeeshay maxaabiistii ay qabqabteen ee ay ka duubeen muuqaalada oo qaarkood godka jiilc uu kula soo kulmay qaarkoodna aan kula kulmay xabsiyo kale ku sheegi doono dadkii aan la kulmay waxay ii sheegeen markii aan iyo dhacdadii markaan isku xusuustay iyo dhacdooyin kale oo ka dambeeyo aniga laftirkeyga soo maray ayaan xaqiiqsaday in isku daygu uu ahaa isku day sumeyn ah ujeedada ay ka lahayn waxay noqon kartaa inay inta isiyaan waxay daroogayaan kadib waxay iga duubaan ama ay basaa igu dilaan waxaan shahna macabay wuu igu soo laabtay wuxuu yiri kubishin ka waran waxaan ku yiri kubishin ma rabo wuxuu yiri cabitaan maxaa cabaysaa waxaan iri wax aan cabaay ma jirto biyo ma rabtaa waxaan iri biyo ma rabo aslan baba wax idinka yimid xaqiina ka socda oo aan cabaay ama cunaay ma ii jirtaa hal saac iyo bar ayaa lagu sii dhow yahay galabka ayay airport iga soo afduubeen waxna ma cabin biyana ma cabin waxaan afka saaray male waana wareysi waan ku jiray waan hadlayay waan qalalay marka afkii ayaa qalalay jirkayguna wuxuu sameeyay wax la dhaho dehydration oo waan fuuq baxay maadaama huur uu jiray aan aad u dhididayay isla markaana su'aalahaas baan ugu socdeen nimanku markay arkeen inaysan waxba isiin karin oo cunto iyo cabitaan aysan igu gaadi karin ayuu fanax goostay inuu wareysiga sii wado wuxuu yiri niyaho nin waxaa tahay intelligent ah macnaha intelligent waxay tahay qof caaqil ah qof wax garad ayaa tahay ayuu ugu dhahay dalkan wuu kuu baahan yahay soo ma fiicneen in aad nala shaqayso oo wada shaqayn aan yeelano yaan la shaqeeyaan ku yiri nabad sugid waxaan ku yiri fanax ani halka shaqo ma u soo doontay meeshaan idinka ay keenteen idinkaan idinkugu imid wada shaqayn iyo shaqo meeshaan uma soo doon arji ma anaga idima soo qoran ma wuxuu yiri saas kama wadee dalka kuu baahan oo waxaa tahay nin loo baahay waxaan ku iri markii dal la wada leeyahay aan arko ayaan dalka la shaqaynaya u shaqaynaya wuxuu ugu dhahay maya dalka waa la wada leeyahay waxaan ku dhahay lama wada laha wuu igu soo celiyay wuxuu yiri maya waa la wada leeyahay waxaan ku yiri fanax ereyada caamada lagula hadlaha igula hadlin laymanka la dhahaa ingiriiska lagu dhahaa layman ereygaasaan u isticmaalay dadka wax ma kasta ah ereyada lagula hadlo caamada waxa loogu sheekeeyo anaha iigu sheekeyn dal la wada leeyahayna ma arkin mana jiro laakiin markii aan helno dal la wada leeyahay allah na gaarsiiyey maxaa dhacay yiri waxaan ku yiri dalka koox yar ayaa haysata iyaga isku tilmaamay mulkiilayaal isku sheegay ayaa haystaa saas markaan ku leeyahay irfanaxo laba tusaalaan ku siinaya waxaana kaa rabaa inaad waqti isiiso wuxuu yiri ha waa sheekaysanaynaa iska wad buuggiina wuu laabay wuxuu yiri waan sheekaysanaynaa absolutely saasuu yiri waxaan ku iri bishii Agosto waxaan ku siinayaa laba tusaale inaan dalka la wada lahayn bishii Agosto sanadkan aan ku jirno 2022